madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta xadhiga ka jaray suuq cusub oo laga hirgeliyay magaalada Burco kaasi oo lagu magacaabo Dar es Salaam Mall waxaana suuqan maal gashaday oo dhisay ganacsatada gobolka Togdheer maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo Saleebaan Axmed Carab oo gudoomiyaha gudida ganacsatada suuqani ayaa madaxweynaha Soomaaliland faahfaahin ka siiyay qaybaha uu ka kooban yahay suuqan cusub moolkan oo xadhiga ka jaray waa Dar es Salaam Mall dhulkan wuxuu ahaa hanti qaranku leeyahay waxa bixiyay madaxweynihii qaranka ee madaxweyne ka horeeyay Axmed Maxamuud Siilaanyo waxa fududeeyay labadii wasiiree kala dambeeyay ee hawlaha guud waxa maal gashaday nimanka hareeraheena tuban oo aad garanayso waqtigii campaign-kana raggii aadkii nooga soo shaqeeyay ahaa ayaa maal gashaday waa 550 meheradood wey 550 muwaadin ayaa maal gashaday sidaasaanay ay ku hirgashay wuxuu ku fadhiyaa bedleg 100 mitir oo isku wareega ayuu ku fadhiyaa waxa ka ganacsan kara oo mar qura ka wada adeegan kara dad ku dhow 1000 qof halkii mar soo gali kara adeegyadeeda kala duwanna iyo fududayntiina ay u wada diyaar tahay marka intii hirgelisay aad baan ugu mahad celinaynaa oo kow ka yahay dawladdii Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaan kale u mahad celinaynaa ganacsadayaashii ku dhiiraday inay u dhisaan suuqa weyn ee inta leeg oo soo kordhinaya shaqo abuur bilicsami iyo u soo kordhinaya iyo faa'iidaba ilaahay ha u barakeeyo 550 ka nin ee ganacsadaha ee ku fekeray inay magaaladoodii ka dhisaan oo u quudaan dhismo aad iyo aad u soo jiita waxaanan u malaynayaa inuu noqon doono dhismihii ugu weynaa ee ka dhisan Soomaaliland waxaan wareejinaynaa mashruucan oo runtii ah mashruuc aad u weyn oo moolka Dar es Salaam Burco moolkan runtii wuxuu ka kooban yahay 550 meheradood oo leh 3 koridhar oo waaweyn oo dusha iyo hoosta marmar ay tahay mashruucan waxaan uga mahad celinaynaa maamulka degmada iyo gobolka iyo runtii gudidii moolka loo dhisayay ee ganacsatada gobolka Togdheer oo hareerahayga taagan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida hufan mashruucan intii aan wadnay shirkadda Najax gacanta ku haysay ay noola shaqeynayeen waxaan leenahay mashruuca maanta ilaahay waa inoo dhameystiray waan idinku wareejinaynaa mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc ku soo kordhiya magaalada Burco bilic iyo quruxda ku soo kordhiya oo noqda mid la tartama moolasha casriga ah ee dunida laga dhiso haddaan nahay shirkadda Najax Construction waxaan magaalada Burco ku soo kordhinay mashaariic qurux leh gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoona ganacsatada gobolka Togdheer ku bogaadiyay hirgelinta dhismahani cusub ee Dar es Salaam Mall marka hore waa ku hambalyeynaya ganacsatada maal gelisay waxa kale oo bogaadinaya dawladda hoose iyo hawlaha guud ee dadaal badan ku bixiyay inuu hirgalo moolashan dawladda hoose qaybta ka qaatay tahay hawlaha guud waana horumar ka muuqda maanta magaalada Burco iyo qarankaba waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo mid baraka leh oo bulshadana wax tara intii maal gelisana wax tara qarankana wax tara madaxweynaha ayaa sidoo kale maanta kormeer ku tagay qaybo ka mid ah xafiisyada dawladda ee gobolka Togdheer Sidiiq Xasan oo warbaahinta SBC